waa codka abuur cusub iyo barnaamijkeennii hal aayad oo aan idiin soo jeedinayo anigoo magacaygu yahay Nuur Xasan. Ishaaciya cutubka 55 aayadda 8 Rabbigu wuxuu leeyahay fikradaydu fikradiina ma aha oo jidadkiinuna jidadkayga ma aha. In badan oo dunida ka mid ah waxaa ka jira ilaahyo been abuur ah oo dadku ay u samaysteen sida ay doonayaan. Meeshii ay ahayd inaan caabudno ilaaha runta ah, qaarkeen waxay naf iyo maalba u huraan ilaahyadaas maskax ku samayska ah. Ilaaha weyn ee qaadirka ah wuu ka sarreeyaa aragtideenna oo ma fahmi karayno haddii aanan ka baran hadalkiisa kitaabka quduuska ah oo Eebbe noogu soo dejiyey si aan uga dheehanno dabeecaddiisa daahirka ah. Sida xaqiiqada ah bini'aadmigu waa abuur nuuc gooni ah oo Ilaahay ugu talagalay inay asaga adeecaan, caabudaan oo ammaanaan, kuna raaxaystaan nimcooyinkiisa aan la soo koobi karin. Dhanka kalena wuxuu noo abuuray inaan dunidan wakiil ka noqonno oo noolaha kale ee nala nool xanaanayno. Waa muhiim mar kasta inaan xasuusanno Ilaahay qofka uu yahay iyo annagu cidda aan nahay. Waana lama huraan inaan maskaxda ku hayno Ilaahay inuu yahay Ilaah qaadir ah oo sida uu wax u arko ay aad uga sarreyso sida aan annagu wax u aragno. Fikraddiisuna aysan ahayn fikraddeenna oo jidadkiisuna jidadkeenna ahayn. Qorshayaasheenna iyo rajooyinkeenna way naga fashilmaan, marmarna maba garanayno waxaan samayno. Haddana kama daalno inaan nafteenna iyo walxa kale aaminka ku qabno. Maanta aan bilowno inaan qalbiga iyo maskaxdaba ku dejisanno kalsoonida aan Ilaahay ku qabno, rajada qorshihiisa wanaagsanna aan ka dhiganno waxa ugu horreeya uguna dambeeya ee aan isku hadlayno. casharkeenna maanta intaas ayuu noogu egyahay. Intaan casharka eega ku kulmayno, nimcada Rabbi Masiix ruuxiina hala jirto.